boqolaal shacab Soomaaliya ay isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada madaxda dalka Koonfur Afrika ee Pretoria. Arrintan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika. waxaa ka soo qayb galay waxgarad, aqoon-yahano, siyaasiyiin, culumaadiin, caruur iyo ciroole. wajiyadooda waxaa laga dheehanayay murugo iyo caro aad u ballaaran. waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo ka mid ah badda Soomaaliya, Soomaali baa leh, dhulkaygu iib ma aha iyo waxyaabo kale la mid ah. waxaa horkacayay gudoomiyaha jaaliyada dalka Koonfur Afrika Maxamed Cumar Warsame Talyaani. waxaa sidoo kale goobjoogayaal ah gudoomiyaasha gobolada kala duwan. waxgarad waqti badan ayay ku qaateen iridda hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika, walow codsigoodii laga aqbalay ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalka Koonfur Afrika. waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa odayaal si kulul uga hadlay dareenkoodana ku muujiyay arrinta damaca foosha xun ee Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, uu ku kacay. annaga waxay noo tahay maalin dagaal bay noo tahay maalin dagaal bay noo tahay maanta si aad ogtihiin. annaga waa maalin la isku dayay waddankanaga in la qaato qayb ka mid ah. miyaan ogolnahay waddankeenna qayb ka mid ah inay Itoobiya qaadato? miyaan ogolnahay in aan annagoo nool waddankanaga qayb ka mid ah laga gada Itoobiya? waxaan u sheegaynaa dadka arrinta isku dayga foosha xun sameeyay, Muuse Biixi iyo qayrkii midna ma gadi karo dhulkeenna. cid aan u ogolnahay inay gadda ma jirto. waddanka waxaa iskale jiilalka soo koraya oo Ilaahay ku abuuray oo muslimiinta ah oo Soomaalida. cid aan ogolnahay in laga gadaana ma jirto. waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan baaq u diro, Itoobiyana aan woonin ama digniin u diro. midda koowaad waxay tahay dadka Soomaaliyeed, walaalayaal, isku duubni muujiya sidii laydinku yaqiinay. isku duubni muujiya meel aad joogtaan dalka iyo dabaddaba. awooddiinnana allaha idin tuso. waxaan nahay dadka keliya oo dunida ku nool, waddan kasta ku nool 5 milyan oo markay ugu yaraato 3 milyan iyo 500 oo shaqaysato professional ay dabadda u jirtaan nahay. waxaan nahay waddanka keliya ee 7 milyan oo hubaysan ay gudahaysa joogto. waxaan nahay dadka keliya ee adduunka siyaasadda ka socota meel walba la socda oo maxaan ku idhaahdaa indhahoodu furan yihiin. sidaa daraaddeed ma ihidin dad dhulka yaalla. waxaa tihiin dad waxooda difaacan kara, dhaxalka awowayaashooda difaacan kara, dalkooda difaacan kara, diintooda kaga faa'iidaysanaydo waqtiga yar yahay. ciidamadeena marineska amba ciidamada badda aan hadda dharkooda ku libisnahay. waxaan ka codsanahay meel walbay joogaan, kuwa cusub iyo kuwa horeba inay diyaar garoobaan. taasaan aan fariinta u gudbinahay. waxaa kaloo u sheegaa Itoobiya maraakiibta iska caraasha bad aad maraakiibta la imaadaan iyo askartiina ma hayno, kuweena naga badan, ciidankeena joogo. waxba ha cabsanaadeen xasanow, noo bilow balaayada. waa ka soo wada baxeena qof alla qofkii jooga dibadaha waa imaanayna, qorina waa gadan karnaa. adeer xasan sheekh cidna mala tutuuga Itoobiya wax la midkooda ahaba ma maqlaysaa? adeer xasan sheekh waa ku baryaa balaayada noo bilow. waa ka soo wada baxeena, waa ka soo baxeena Itoobiya South Africa. adeer xasan sheekh waa mahadsan tahay. madaxweyne xasan sheekh adeer madaxweyne waa mahadsan tahay. khayr allah ku siiyo. ma maqlaysaa? Itoobiya iyo wax la midkaada waxba lama tutuugaayo karo. waxa weeye dalkiisii baa holcahaya. wuxuu ku talagalay inuu dalkiisa burbursan inuu sii jeediyo dadka oo ku sii jeediyo inuu wax u raadinayo ku talagalay. laakiin waxba kama jiro. innaga Soomaali baa la yiraahdaa professional. waxaynu ku nahay dagaal iyo xabad baan ku nahayba. wixii kale la isugu yimaado waaba hawsheeniiba. waxaa sidoo kale ku sugnaa gudoomiyayaal kala duwan oo ku matala dalka Koonfur Afrika, gobolada kala duwan ee Soomaaliya. hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sida tan. dawladda federaalka Itoobiya oo hogaamiyaha Abiy Ahmed may lahaa
soomaaliya maybwa dad iska hiru meel kasta yura islaaladan wadanka markaad qobsatiin maybwa Ethiopia dhamayti aan ma argay markuu waliyaro hambahay kin heri in aadan ka tala gali in aad dhamayto macnaha marka saas dartiya maylaha Abi Ahmed barnaamijkaas iyo barnaamijkaas aadan ka tala gali in dadka ka dhamayto maakin ku digay in aad fara ku labato ugu dambeynna waxa goobta si kulul uga hadlay oo cambaareeyay gudoomiyaha jaaliyada dalka Koonfur Afrika Maxamed Cumar Warsame Talyaani soo baxeen maanta marka xigta waxaan rabnaa inaan baaqan uga faa'iideysano madaxdeena qaranka Soomaaliya dalka Koonfur Afrika qiyaastii 40,000 oo Soomaali ayaa ku nool maanta madaxweyne ama madaxda qaranka waxaan halka ugu direynaa kaaga ma baahni inaan hubeyso kaaga ma baahni inaan risaasna siiso haddaad maanta ku dhawaaqdo dalkaas inaan xabad u baahan yahay inaan ku difaacno waxaan diyaar u nahay hubkeenna annagoo wadanno inaan dalka soo galno ayaan diyaar u nahay hadduu warku yahay dhaqaale waxaan diyaar u nahay dhaqaale walba oo dalkaas lagu difaacayo inaan ku bixinno qarash walba maalkeenna iyo hantideennaba inaan ku bixinno ayaan diyaar u nahay nafteennana aan u bixinno ayaan diyaar u nahay madaxweyne waxaan kaa sugnaa waa dhawaqa hadalkaaga dagaal haddoo noqon lahaa iyo diblomaasiyad haddoo noqon lahaa doorkii diblomaasiyadda waan qaadanay doorkii jaaliyadeed waa qaadanay doorkii qurba joog waa qaadanay haddaan nahay reer South Africa maanta waan soo baxnay codkeennana waxaan gaarsiinay dowladda South Africa oo ka mid ah ururada BRICS ka mid ah midowga Afrika hoggaanna u ah ururkan saddex la yiraahdo ama Southernka degan wadamadooda waxaan rajaynaynaa warqadaas aan gudbinay inay micno weyn Soomaaliya ugu fadhin doonto Soomaaliyana waxaan leenahay guul waxaan leenahay midnimo ma doonayno 50 sano kadib in dalkeena la isweydiiyo sida Falastiin oo kale oo dhagaxyaan ku soo aruurna ma doonayno 100 milyan oo dul degan diyaar uma nihin wuxuu Ilaahay nama kaniyay inaan ooga tagno diyaar uma nihin Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada madaxda dalka Koonfur Afrika Pretoria